madaxweynaha maamul goboleedka galmudug maxamed axmed caalin ugu horeyn waxaad nooga warantaa bal galmudug inaad sharaxaad naga siiso. waay bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. horta khaasatan idinka b b c da waa idin salaamayaa, ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa salaamayaa. galmudug macnaha ay xambaarsanta horta waxaa waaye magaca galguduud iyo mudug waaye. magaca halkaas uu ka yimid, waxaana aasaasay oo fikradda iska lahaa dadkii dibadda ku noolaa ee u dhashay gobolkaas. run ahaantii adigu kow waxaa la aasaasay August 2006. marka dhowr hadda dad oo wada dega meesha ayaana wada dhistay, dhowr beeloodaa ku jira. weli marka ma wada gaarin horta maamulka labada gobol oo dhan si fiican uma wada gaarin, laakiin insha allahu in si aada iyo aada u ballaaran inuu u gaari doonaan rajaynaya haddii alla yidhaahdo. maxay tahay ujeeddada galmudug loo dhisay? horta ujeeddada ugu weyn ee loo dhisay waxay ahayd ummadda halkaa degta ee walaalaha ah inay maamul helaan, maadaama dowladdii soomaaliyeed mashaakil badan iyo dhibaatooyin fara badan iyo dagaalo iyo laga bixi waayey. bal horta hoos in laga soo dhiso, dadku inay helaan marka maamul iyo nabadgelyo, ayagu inay kala nabadgalaan, dadka dariska la-aana marka ay ka nabadgalaan, lana ballaariyo kabacdi intaa kaliya xataa aan lagu ekaysaynine ilaa iyo intay gaari karto, fahmi karto, nabad wada samaysa, maamul wada samaysan karta lawada. taasay ahayd ujeeddadu. marka ujeeddadii weli ma ku socotaan mise maxaa iska bedelay? weli waa ku soconnaa, inay kasii ballaaratana waaba rajeyna, waanu ku rajo weynaa hadda. in muddaha ayaad joogtay dalalka dibadda, maxay tahay ujeeddada aad dalalkan dibadda u joogtay? aniga markii la magacaabay run ahaantii wax hadda maalin waqti fog ma aha. maamulkii iyo baarlamaankii iyo hay-adihii hekelkii maamulka ayaan dhisnay horta. marka in bal caalamka oo dhan in meeshaasi nabad inay ka jirto, maamul ka jiro, si fiican loogu qeexo. dadka soomaaliyeedna inaan nabad horta ka wada iibino, nabad inaan doonayno, cid kastana nabad kula noolaanayno. annagana dadkii meeshaa u dhashay inay gartaan wanaagga iyo nabadda iyo maamulka waxa uu yahay. waana lagu guulaystay ingiriiska oo aan meelo tegey, Norway, Sweden, Finland. welina waxaan jeclahay wax haddii ay jirin deg deg oo kale oo hadday cel inaan ayagana inta hartayna meelo badan aan tagaan rajeynay. magaalada Lund ayaad joogtaa, halkan oo uu ka socdo shir ay isugu yimaadeen soomaalida aqoon-yahano iyo siyaasiyiinba. maxaad ka haysaa, maxaadse ka filaysaa shirkan haddii aad tahay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug? horta shirkaani waa laygu casuumaya. waxaan aan ka filaynana ma aha keliya hadda soo bixidda aan soo baxay matalan ma ahayn dadkii galmudug keliya u dhashay. waxaan arkay soomaali oo dhan aan arkay. awalna xataa markii hore aan imid magaaladan intaanan u gudbin Finland, mas-uuliyiinta waddankan u dhashay waan arkay. marka dad kale oo badan ama Soomaali leh ama dowladaha dariskaa leh ama adduunyo kale leh ayaad arkaynaa. haddaba sida aad ka arkaysa maanta shirka waxbaa la isdhaafsanayaa, fakar baa la isdhaafsanayaa, waxa meesha ka jira inaad si fiican iyo dhibaatada Soomaaliya xalka sida loogu heli karo in laga wada hadlaan ka faa'iideyna halkan. dowladda federaalka ku-meel gaarka ah falgal noocee ah ayaa idinka dhexeeya? dowladda ku-meel gaarka run ahaantii aada iyo aad ayaan iskugu wanaagsannahay. waxyaabo badan oo ay aan isla qabanay ama ay nala qabatayba iyada laftirkeedu waa jiraan. dowladdan markii Jabuuti lagu soo dhisana wax u banaan baxa oo taageera anaga ugu horeynay.
haddana madaxweynaha sheekh shariif iyo prime ministerka cumar cabdirashiid waxaan wanaag ahayn iyo wada shaqayn hadda anagu ayagaan hoos nimaanaha dowladda federaalka ayaanu ka midnaha annaga. dad badan ayaa isweydiinaya baahida loo qabo xilligan dhismaha maamul goboleed, qaarkoodna waxayba u arkaan inay tahay midnimadii Soomaaliya oo la sii fogeynayo. ciddii rabtaa inay goosato waaba sheegto oo goosanaynahay. anagu laakiin waa caddaynaa caddeertaana waa kuwa caddeeye annaga dowladda Soomaaliya iyo waddanka inaanu marna ka go'no anagu marna kuma fikirin mana ku fikarayno, khaasatan aniga cidda wadata oo maaragtay maamulkeena ka mid ah waxa weeye waxaan ka yeelaya maaha. dhaliisha kale ee jirta waxay tahay in galmudug laga aaminsan yahay in ay tahay hal beel oo keliya oo beel keliya ay ku dhisan tahay, taas ma jirtaa? runtii waxaan jeclaan lahaa inaad sii fasirto oo kuu sheegay beelo badanaa ku jiraan ku yidhi kala duwan, marka koox kaliya taas ayaa la leeyahay marka beel keliya ayaa u badan hadda galmudug. beelaha kale aad sheegayso dabcan dadku ma ogaan u malaynaya haddaa u sheegi karto. waa ku jiraan beelo horta gobolkan marka la yidhaahdo galmudug marka la yidhaahdo 4.5ka Soomaaliya ay wax u qaybsatay horta waxaa ka maqanaaba iska yarba mid kaliya aan malaynaya, inta kale Soomaalida waa ku nooshahay. marka haddana saas ay tahay dadkii isla deegaanka deganaay hoos markii loo soo laabto ilaan marka walo walba la yidhaha foorkii mid marka loo qaado mid hal gobol ma wada degana, waa kala firdhayaan gobollo badan ay kala degan yihiin. laakiin meeshaa waxa weeye dhowr jufo ama beelood saa marba u fasiri kartid ayaa ka mid aho ku jira, wasiirra kule xildhibaano kuleh waa la kala badan karaa 2 iyo 5 iyo wax waa la kala bataa, laakiin waa lagu wada jiraa. maxay tahay ujeedada rasmiga ee aad ka leedihiin aasaaska iyo dhismaha galmudug ama mustaqbalka waxa aad rajaynaysaan galmudug inay noqoto? horta galmudug waxa weeye saan kuu sheegay maamul dowladda adaaba hadda yiriba awoodeeda intay la egtaa waa garanaysaa, dhaqaale xumo ha iska jirto, awood darro ha iska jirto. marka maadaama aysan meel walba wada gaarin gacanteeduna wada gaaraynin dadka kale ma la dayacayaa. marka waa inay helaan nidaam gurina hoosaa laga soo dhisaa horta, wax kasta hoosta inay ka bilowdaan ku fiican. marka hoosaanu ka wadnaa bal inaanu ku kala nabadgalno, maamul yeelano, nidaam yeelano, waxbarasho dadku helaan, caafimaad helaan, amni helaan, jo noloshii ay caadiga ummadda bini aadanka ay u baahnayd inay helaan dadka waa lagama maarmaan. laakiin haddaan idhaahno aan sugna uun maaragtay ilaa xamar ay ka degto gacanta looga wada dhigo dalkao dhan ay ka wada gaarto, haddee 20kii sano intii 4 sano hadda aan joogno moogiye maamulku jiray intii ka horeysay soo dad lumay maana ahayn haray. taasaana marka ka dagaalama, taasaa hadda haddii la fahmay dadkiina hore aan u soco. haddana waxaad moodaa dadku sidii hore ma aho bisayl fiican maaha galmudug kaliya waxaan ka hadlayo ummaddii oo dhan in bisayl soo geliya.